noqon youtuber 2026 adigoo ku fogaan todobadan qalaad haddaan ku sheego xaqiiqada youtube-ku ma aha sidii 5 sano hore la soo dhaafay maanta qof kasta waxa uu leeyahay kaamiro qof kastana waxa uu rabaa inuu caan noqdo ama lacag ka sameeyo platform-kan laakiin wilma isweydiisay maxay u fashilmaan dadka 90% marka ay bilaabaan youtube-ka sababtu ma aha nasib xumo ee waa 7 qalad oo dilaa oo ay ku celceliyaan haddaad rabto inaad sanadka uu noqdo sanadkii noloshaada wax ka bedeli lahayd nala soco ilaa dhamaadka sababtoo ah qodobka 7aadi waa mid kaliya u dhaxeeya youtuberka guuleystay ee youtuberka qoostay qodobka koobaad doorashada mowduuc qaldan ama mowduuc la'aan dad badan waxay yiraahdaan wax walba waan ka hadalnaa taas youtube-ku waxay ka dhigaysaa inuu gari waayo cidda saxda u tusinaya muuqaalkaaga haddii aad leedahay mowduuc gaar ah algorithm-ku waxa uu garanayaa cidda uu tusin lahaa saana wuxuu ku tusin doonaa dadyooga targetka ee u baahan tahay inuu muuqaalkaaga si gaadho qodobka labaad ku tiirsanaanta 100% ee aygu waa saaxiibka laakiin hadduu muuqaalkaagu ekaado mid robotic ah video editing-kaaguna uu kaa xun yahay dadku ma daawan doonaan muuqaalkaaga markiiba way ka baxayaan taas macnaheeduna waxa weeyaan inaad samayso video editing aad iyo aad u tayo sarreeya saa dad badan u soo jiidato hadda waxaad ka fikiraysaa meesha aad ka bari lahayd video editing-ka hawarwarin waxaan kuu diyaariyey 2 course oo khaas ah oo ugu talagalay qofka inay ka bilaabaan 0 to hero marka haddaad diyaar tahay linkiga description-ka igala soo xiriir qodobka 3aad codka aan si fiican u edit gareynin ama meel buuqaad ku duubtay dadku way daawan karaan muuqaal tayo yar laakiin marnaba ma daawan karaan oo ma dhamaysan karaan muuqaalka hadduu codkiisu ka xun yahay haddii codka uu yahay mid dhawaq ku furan yahay ama echo ama sanqadhi ay ka dambayso daawadayaashu 10 ilbiriqsi ugu horeysaba way ka bixi doonaan youtube-kuna ma sii faafin doono muuqaalkaaga halkaasina waxay ku cadaynaysaa ahmiyadda uu leeyahay codka kuu saxmaa waa talaabada ugu horeysa guusha youtube-ka qodobka 4aad waa thumbnail iyo title aan soo jiidasho lahayn muuqaalkaagu waxa uu noqon karaa mid aad u fiican laakiin ma ogtahay waxa dadka soo xirigeliya inuu yahay thumbnailka iyo title-ka hadduu thumbnailkaagu xiise leeyahay title-kaaguna uu xiise leeyahay dadku waxay ku khasbanaan doonaan inay muuqaalkaaga kala siiyaan kadibna waxay ugu tagi doonaan muuqaal aad u fiican wayna dhamaysan doonaan ilaa dhamaadka halkaasina youtube-ka uu sii faafin doonaa qodobka 5aad sugitaanka qalab dhammaystiran ha sugin intaad ka iibsanayso iPhone-kii ugu dambeeyay ama kaamirooyin $1,000 la siiyo qaladka ugu weyn ee aad samaynayso waa cagajiidka ku bilow waxaad gacantaada ku hayso youtube waa safar qalabkuna waxa uu la kori doonaa channel-kaaga markastuu channel-kaagu korona waa markastuu qalabkaagu ziyaaday hadda anigu waxa aan ku bilaabay youtube-ka waa taleefankayga kaliya haddana maanta waxaan ku edit gareynayaa muuqaaladeeda oo aan ku samaynayaa waa studio-ha dhinaca kaaga muuqda marka had iyo jeer ku bilow waxa aad hayso qodobka 6aad joogtay la'aan youtube-ku waa marathon waa orod lagu wada jiro ilbiriqsigii waxa la soo faafinayaa 2 milyan oo muuqaal haddii aanad joogtaynin youtube algorithm-ka uu ku ilaawi doonaa saani hadda igu dhacday oo kale oo muddo 1 bil ah wax ma soo posti gareynin ugu yaraan haddii aad go'aansato inaad soo posti gareyso usbuuciiba 1 muuqaal isku day inaad joogtayso 2 toddobaad ee sanadka ah si aad u gaadho guul iyo horumar wacan qodobka 7aadi waa qodobkii ugu muhiimsanaa waa halka ku kala hadheen youtuberka guuleystay ee youtuberka fashilmay qodobka 7aad waxaanu oran doonaa inaanad dhegeysan daawadayaashu waa khaladka ugu weyn ee aad samayso dadka badankoodu waxay muuqaaladu soo upload gareeyaan si ay iyagu u arkaan laakiin uma soo upload gareeyaan si ay daawadayaasha ama dadka u caawin lahaayeen akhri commentiyada oo eeg analytics-kaaga baro waxa ay dadku rabaan youtube-ku ma aha meel lagu faano ee waa meel adeeg iyo qiimo lagu bixiyo had iyo jeer isku day markaad muuqaal soo geliso inaad muuqaalka commentiyadiisa akhrido oo aad kala dhex baxdo waxay daawadayaashu u baahan yihiin si aad ugu faa'iideyso adeeg aad u fiicanna aad u bixiso haddii aad ka fogaato 7 qalad youtube-ku waxa uu ku noqon doonaa albaabka guushaada ha biqin ha sugin ee bilow maanta haddii aad cashir ka baratay muuqaalkan subscribe dheh like saar commentigana noogu reeb muxuu yahay qalabka ka hortaagan inaad hadda bilowdo youtube-ka waa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh